السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal channelka Maasheeye insha Allahu tacaala maanta waxaanu ka sheekeyn doonaa qiso aad u la yaab badan oo ka dhacday wadamada galbeedka qisadan waxay ku tusaysaa qofka markuu Ilaahay hanuun la doono iyadoo aad moodayso inuu arrinkaasi mustaxiil yahay xataa inay suurtagal tahay wama dhalika cala Allahi bicasiis haddaba qisadan waxay ku saabsan tahay wiil yar oo 10 jir ah iyo aabihii oo nin Kristan ah wadibana Kristan kaliya tamaahe waxa weeye nin Kristan oo baadiriya oo kaniisado badan haysta wiilka yar aabihii maalin kastoo sabtiya axada marka iyagu sabtiya axad inta badan fasaxiyeen wadamada gaaladu xagga inaga madaaristeena iyo iskuuladeena jimcaha iyo khamiista la fasaxo haddaba maalin kastoo sabtiya axada wuxuu geyn jiray kaniisada si uu wax u soo baro wiilka yarna wuxuu ahaa mid aad u garaad badan ciyaalku markay yaryar yihiin waxaa jira qaadkood oo ay garaad badnaan iyo maskax badnaan ay ka muuqato haddaba ka yarna sidaasoo kale u ahaa waxaanu jeclaa wiilkan yar wax akhriska iyo inuu inta badan bugaagta baadho uu akhriyo si uu wax cusub u barto haddaba maalin maalmaha ka mid ah isagoo bugaagtii baadhaya oo akhriyaya ayaa waxaa ka soo baxay nuskhad daabacadihii ugu horreeyey lagu sameeyey injiisha ah oo xaafadooda dhex yaala wiilkii yaraana intuu kitaabkii injiishaha soo qaaday ayuu akhriyey markaas siduu u akhriyay waxaa ka soo horbaxday hal kelmad baa soo jiidatay oo uu dhaafi waayey kelmaddaas waxay ahayd in nebi ciise calayhi salaam iyagu waxay aaminsan inuu ilaah yahay oo dee waabay caabudaani waxaa ka soo horbaxday in nebi ciise ku bushaareeyey nebi ka dambeeya isaga oo dadka islaaxin doono dariiqa xaqa ugu yeedhi doona dariiqa baadilkana ka soo leexin doono ilaahay gacantiisa dad badan kusoo hadiyeyn doono haddaba wiilkii yara aabihii buu u yimaaday waxaanu ku idhahday aabba waayo ninka ciise dabadii soo bixi doona ee ka soo baxaya deegaan aan deegaankeena ahayn isagoo dadka ugu bushaareynaya diin cusub iyo kelmadda xaqa aabihii baa yaabo ku idhahday aabba miyaad waalat waa maxay waxaad leedahay ma inankaygiba maanta waxaa leh markaasuu ku idhahday inankii yara markaa inankii yara baa ka sheekeynaya qisadan aabba laakiin kitaab baan ka akhriyey aabihiina markaasuu ku idhahday may kitaabkaas waa qalad mar dambana ha isku akhriyin inankii yara intuu cararay buu soo qaaday kitaabkii injiisha ahaa markaasuu ku idhahday laakiin aabba waxaan kitaabkan injiisha bay ku qoran yihiin be aabihiina intuu kitaabkii ka qaaday ayuu eegay waxaanu ku idhahday maya aabba aduu weli waad yartoo maad gaadhin waqtigaad fahmi lahayd waxaane iska daa waxbaa ku wareerini inankii yaraana wuxuu ku idhahday laakiin aabba waxaan injiishii bay ku yaalaan be aabihiina wuxuu ku idhahday haddaba aabba waxba hayna wareerinay naga daayo qof dambena su-aashaas oo kale ha weydiinin inankii yaraana kumuu qancin jawaabtii aabihii markaa wuxuu gudagalay inuu baadho oo uu raadiyo bal xaqiiqadu waxay tahay haddaba sidii uu bugaagtiiyo kutubta u baadhayay wuxuu ogaaday inuu ninkaasi ahaa nin caraba oo ka soo baxay jasiiradda carabta waxaanu markiiba xasuustay hodhaal xaafado oo ku yaalla oo ay dad carabi leeyihiin aroornimadii ayuu ku kallahay waxaanu tegay hodhaalkii ninkii hodhaalka haystay ayuu ku idhahday inankii yaraa miyuu jiraa nin dadka carabta ka soo dhex baxay oo idinku yeedhay wanaagga islamarkaana xumaanta idinka reebay diin cusubna la yimaada ciise dabadii ninkii hodhaalku wuxuu ku idhahday haa ninkanaad ka hadlaysa waa nebigeyga waxaana la idhahdaa maxamed inankii yaraana wuxuu ku ihi bal iiga waran sheekadiisa ninkii hodhaalka haystayna wuxuu ku idhahday inka qisadiisa oo dhammaystiran kaagama sheekayn karaye waxaad samaysaa intuu masaajid u tilmaamay buu ku idhahday masaajidkaa tag oo dadka jooga weydii iyagaa qisadiisa oo faahfaahsan si fiican kaaga sheekaynaya inankii yaraana wuxuu tegey masaajidkii loo tilmaamay markii uu soo gaadhayna ilmo yaroo ciyaalu haayay intuu qayliyey buu ku idhahday dadkiina meesha fadhiyo qaar carabi bay ku jiraan dhowr nin oo angalkaa fadhiya ayaa ku idhahday annagaa carabi maxaad doonaysay isaguna intuu tegey buu ku idhahday bal iiga warrama maxamed iyaguna waxay ku idhahday maxamedkana sheegaysaa waayo wuxuu ku idhahday inankii yaraa nebigii soo baxay ciise dabadii markaasii ku idhahday maxaad uga baahan tahay isaguna qisadiisii oo dhammaystiran buu u sheegay iyaguna markaa intay soo dhoweeyeen oo ay meel soo fadhiisiiyeen ayay uga sheekeeyey qisadii nebiga sala allahu calayhi wasalame inankii yaraana aad buu la dhacay siiradii nebiga markii looga sheekeeyey waxaanu gudagalay inuu maalin kasta yimaado masaajidka si uu maalin kasta in yar u dhegaysto markuu in muddaasaa ku waday ee uu imanayay masaajidka islamarkaana uu dhegaysanayay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalame ayay maalintii dambe dadkii masaajidka joogay u tilmaameen inankii yaraa inuu nebi ciise calayhi salaam uu ku bushaareeyey nebi ka dambeeya oo soo bixi doona nebigaasna magaciisa la idhahdo maxamed amba axmed inankii yaraana sidii tiyo u sugayeen intaa u sheegaanba ayuu qayliyo markaasuu ku leeday itusa meeda aayaddaasi iyaguna intay u soo qaadeen kitaab turjuman oo luqadda ingiliishka ku turjuman ayay tuseeno markaasi farta ugu fiiqeen welibana inankii yaraana markuu aayaddii akhriyey ayuu yidhaahday waxaan rabaa inaan ka mid noqdo atbaacdiisa ee sidee baan uga mid noqon karaa iyaguna waxay u tilmaameen sidii uu u islaami lahaa waxayna ku yidhahdeen keliyata waa inaad tidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh wa ashhadu anna ciisa cabduhu warasuuluh macnaheegana way u sheegeen waana u fasireen inankii yaraana saasuu diinta islaam ku qaatay oo uu qof muslimo ku noqday intaas kadibna intuu aabihii u tegay isagoo faraxsan ayuu ku idhahday aaboy maanta ayaan soo ogaaday xaqiiqadii oo dhammaystiran aabihii markii uu weydiiyey uu ku idhahday maxaad soo ogaatayna wuxuu ku jawaabay waxaan soo ogaaday inuu carab talibi ka soo baxay magaciisana la idhaahdo maxamed diin cusubna uu la yimaado oo uu dadka farya cibaadada in ilaahay oo keliyata loo khaas yeelo ciisena uu nebi yahay odaygii aabihiina markuu intaa maqlay intuu aad u xanaaqay qajo intaa la leekaadeen ayuu ku idhahday war maxaad ku hadlaysaa miyaad waalatay markaasuu intuu inankiisii yaraa garaacay ayaa markuu ka noqon waayey diintii ayuu meel ku xidhxidhay si aanu dadka muslimiinta ugu tegin oo aanu xalqadii iyo aqoontii uu ka soo baran jiray masaajidka aanu ka soo dhigan laakiin markuu in muddaa ku xidhnaa qolkii inankii yaraa ee ay odaygiina la soo hadleen maamulkii iskuulkii uu dhigan jiray islamarkaana uu
u baqay naftiisa iyo inuu fadeexadoobo ayuu inankii yaraa safar u diyaariyey ilaa iyo Tansaaniya. Waxaanu u diray isaga aabihii oo xaggaa ku noolaa. Aabihiina wuxuu ahaa sidiisoo kale nin Kristan ah oo baadari ah oo diinta Kiristaanka ku dhex faafiya wadamada Afrika dhexdeeda. Inankii yaraa haddaba markii uu Tansaaniya yimaaday kamuu harin inuu diinta baadho oo uu barto. Markii uu Tansaaniya sidaa u tegayba wuxuu raadiyey masaajida iyo meel ay dadka muslimiintu degan yihiin. Markii uu helayna wuxuu gudagalay inuu maalin kasta tago si uu wax uga soo dhigto. Haddaba intaa kadib odaygii awowgii ahaa ayaa ogaaday inuu inanka yar masaajidada tago. Markiisii horena wuu uga sii digayo wuxuu ku leeyahay isku tegin dhulka ay dadka islaamka degan yihiin. Laakiin inanka yar muu maqlayn, waxaanu doonayay inuu diinta islaamka si fiican u barto. Haddaba odaygii awowga uu ahaa markuu dhowr cisho uga digay inankii yarana uu ku adkaystay arrinkaasi inuu diinta islaamka saa ku sii haysto ayuu markii dambe dhagar u maleegay. Waxaanu damcay inuu inanka yar gebigiisaba ka takhaluso oo uu gebigiisaba dilo si aanu cayb ugu soo hoynin. Inankii yarana markuu ogaaday dhagartan uu awowgii u maleegayo wuu ka baxsaday gurigii. waxaanu tagay qolo muslimiin ah oo deganay dhulka Tansaaniya. haddaba subxaanallah, qisadan markaad aragta si ay u eg tahay iyo ilmaha yar ee aadka u daayada yar ee diintiisa ku adag islamarkaana ilaashanaya ee ciyaalnimadiisii iyo ehelkiisii iyo wixii uu adduunyada haystay oo dhan ka doorbiday inuu dariiqa xaqa haysto iyo diinta ilaahay, oo aad soo barbar dhigto dad waaweyn oo isku tilmaamaya aqoon-yahan islamarkaana kule waxaan sitaa master, waxaan sitaa PhD, shahaadooyinkaasi waxaasoo aqoona u sitaana aanay garansiin dariiqa xaqa ah, bale iska dhaaf ay qaarkood ka odhanayaan adduunyada dhammayska tiran ee aan haba yaraatay wax nusqaanan lahayn, islamarkaana uu ilaahay ugu talagalay bini'aadanka sida ugu fiican inay ugu noolaadaan, welibana aqoonteedii siiyey. haddana iska kaa odhanaya adduunyada waa iska bilaabmatiyo cid abuurtayba ma jirto. markii ugu horreysay qarax yar baa dhacay oo qaraxii waa fiday iyo adduunyadii waxaa oo dhan buu gebigeedu isku wada abuurmay. haddii aad adigu ku tidhaahdo gaadhiga xaggaa yaalaana uu iska samaysmayin oo birihii iyo waxba isku yimaaday iyo gaadhi buu noqdayba, ku odhanaya miyaad waalantay mise caqligaa lagaaga jira? walaalayaal, haddaba dunida maanta waxaynagula nool dad sidaasoo kale u fikiraya, caqligooguna aanu shaqaynayn. inta ugu badanna dunida maanta rag caynkaasoo kalea ayaa rool moodhal looga dhigaa amba dad ay ku daydaan. xagga inaga qudwada ayn ku dayanna amba rool moodhalkeenuu yahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii sharafta lahayd. haddaba walaalayaal, waxaad ku dadaashaan inaanay aqoontaadu noqon mid adiga ku hodda oo jaxiimo kugu tuurta, ee ay aqoontaadu noqoto mid aad wax ku kala garato oo aad xaq iyo baadilka ku kala saari karto. haddii aqoontaada maanta aad xaq iyo baadilka aanad ku kala saari karin, ogow aqoon meesha kuma hayside. waayahay, haddaba maanta xaggaas in xalqadeena kusoo gabagabaynaynaa. tan iyo intan muuqaal dama ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. subxaanaka allahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha illaa anta, astaqfiruka waatuubu ilayk.